Raggan aad aragtid waxay u yimaadeen hawl muhiim ah halkan. Waana koox 15 nin oo Sacuudi ah ka kooban, waxaana hogaaminaya Saalax Qudaybi oo ka socda laanta baadhitaanka iyo dambiyada amniga Sacuudiga. Waxay soo gaadheen airport-ka Ataturk ee Turkiga, iyagoo oo wata 2 diyaaradood oo khaas ah oo noocoodu yahay Gulfstream, oo ay leedahay shirkadda Sky Prime. Waxay ku socdaan waa qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga. halka dhinacan kale uu ku sugan yahay Jamaal Khashoggi oo la socda gabadhiisa, kuna socda safaaradda Turkiga siduu u fushto hawl muhiim ah. Waxa uu Jamaal ka tagay gabadhiisa, waxa uu sidoo kale ka tagay telefoonkiisa si uu u galo safaaradda. Maalintan waxa si degdeg ah loo fasaxay shaqaalihii safaaradda ee asalkoodu ahaa Turkiga. ilaa xilliga iyada oo aan la garanayn sababta loo fasaxay maalinta shaqaalaha. sidoo kale kamaradaha wax duubamay dubeen maalintaas sida laga soo xigtay qunsulka safaaradda. markii ay ka soo wareegtay 3 saacadood oo xiriir ah oo ay sugaysay Khadiija, warwarkeedii ayaa kordhay. waxa ay isku dayday inay gasho safaaradda isagoo u soo baxay nin qunsulkii Sacuudiga ah, uuna u sheegay inay halkan cid joogin. halkan ayay ka bilowmaysaa isbaabuintii Khashoggi. sarkaal sare oo ka tirsan amniga Turkiga ayaa u xaqiijiyay wargeyska New York Times in dilitaankii la dilay Khashoggi uu ka yimi amar sare oo ahaa dowladda Sacuudiga. isla maalintaas waxaa la jarjaray jidhka Khashoggi iyadoo loo isticmaalay minshaarta nooca lafaha ah. in yar kadib nimankii lagu tuhmayay dilkii Khashoggi ayaa safaaradda ka soo baxay iyaga oo wata 7 baabuur. 4 ka mid ah baabuurtu waxay u jihaysteen gurigii qunsulka oo ka fogaa safaaradda 500 mitir, halka 2 ka mid ah baabuurta ay kireysteen hotel. waxay dhiibeen lacagta 4 habeen, laakiin kumay nagaadin. 2 saacadood kadibna way baxeen, iyaga oo ku baxay gaadhi madow, jarayna waddada highway-ga ah. baabuurka taarikadiisu waxay ahayd mid diblomaasi ah. mid ka mid ah 2 diyaaradood oo ay saarnaayeen 7 qof ayaa ka kacday madaarka abaare 6dii, iyadoo ku jihaysneyd Masar, halkaas oo ay ku sii nagaadeen 1 maalin. halka ay diyaaraddii kale ka dushay madaarka 12kii habeennimo. waxaa la rajeynayay inay 6 qof siday, waxay ku sii nasteen Dubai. booliska Turkiga ayaa aaminsan in 2 kamaradood ee dhacdada duubayay loo qaatay dhanka Riyaad isagoo wafdigu qaatay. booliska Turkigu wuxuu aaminsan yahay in 3 meelood oo ku yaala Istanbul oo sir ah ay ku lug lahaayeen dhacdadaas. xitaa booliska Turkigu waxay diyaar u yihiin inay baadhaan 3 meelood oo looga shakisan yahay meydkii inuu ku aasan